wafdi ballaaran oo uu hogaaminayay madaxweynaha qaranka Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa maanta kala qayb galay kumanaan taageerayaal oo u soo ambabaxay sidii ay cudud taageero ugu muujin lahaayeen xisbiga talada dalka haya Kulmiye waxaanay munaasabadani ahayd mid cidhif ilaa ka cidhif ay buuxdaafiyeen taageerayaasha xisbiga talada dalka haya Kulmiye ugu horeynba waxa goobtaasi hadalka iskaga daba maray mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo madaxda xisbiga Kulmiye gobolka Togdheer iyo marti sharaf kale haddii aynu nahay waatii laynagu yaqaan waa la tartamayaa maanta oo ay tahay maalintii koowaad ee Kulmiye lahaa dadka intan leeg ee isu soo baxay waxa weeye wixii aynu caanka ku hayn haddii aynu nahay guushii waynu haysanaa ilaa maalinta doorashadaynu gaadhayno inaynu sidaaynu u shaqaynayno iyo sidaa u amar qaadanaysaan inaynu isu maqalno kulligiinba in la ilaaliyo nabadda in si salmiya loo dareero in sidii loo yimi si la mid ah looga baxo meesha qolo waliba ay ku noqoto gurigeedii iyo meeshii ay ka soo baxeen baan idinku baaqayaa aad iyo aadna waa u bacadka tuban aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa aad baynu u nasiib badannahay in maanta uu inagala soo qayb galo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo geesta kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay wasiirada wasaaradda warfaafinta hawlaha guud madaxtooyada macdanta iyo tamarta waxaanay tilmaameen in magaalada Burco ay tahay meeshii laga unkay qarankan Soomaaliland mar kalena ay tahay xuduntii xisbiga Kulmiye muddo 50 sanadoodna uu halganka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland hadday mid halgan tahay iyo mid hadday dawladnimo tahay iyo hadday mid horumar tahay iyo hadday mid amni tahay oo intaba u soo jiray muyaanay ahayn maanta inaynu toojka ku wareejinno nin lagu kalsoon yahay oo leh khibradda iyo halgankii iyo waxqabadkii iyo madaxnimadii Axmed Maxamed Siilaanyo xarunta xisbiga Kulmiye waa halkii weligeedba looga codayn jiray markaa dadweynaha reer Kulmiye waxaanu kula dardaarmaynaa kula ballamaynaa إذا حسب كلمية سيدة أي واحد يشترين يسدي وتاجر يشترين يسدي ولا وسمين يشترين بقى أي سيلة من اللابان نبت قليل ذا الهلاليان وحمان ذلك إن لا تشوفه مدحوينا جمهورية الصوماليلاند هو أساسه حسبها مدحوينا جمهورية الصوماليلاند هل كانوا يمكن ينشري إن بدن يسوق حسبها كلمية هو قرشان وأنا اللي لولاجين كو وحيننا حسبه فضلنا السنة دلك المعمولية وحقبت بينه هينا وهذا الترمى هينو صوماها وحيننا هي حزب ويارقا أو شرعي دعي أو يقان قول قرنا أو يقان قوشا وحيننا هي قلوين كالليلقا لكي دعي شريكماها دوام بردكو هدي لمن ودني وحيننا هي لكي دعي شريكماها دوام بردكو هدي لمن ومالنت codaynta weeye waxaynu u baahannahay saddexda wiiga hadhsan inaynu is-abaabulno inaynu iswacyi gelinno intiinan halka taagani abaabul iyo wacyi gelin uma baahnidin waxay u baahan tihiin kuwa guryaha kaga timaadeen inay abaabushaan oo wacyi gelisaan dhallinyaradeenna abaabushaan dumarkeenna abaabushaan guryaha boqolaalka ee xisbiga Kulmiye ee dalka ka furay ugu shir qabataan ilaa inta laga gaadhay maalinta election gabagabadii markii lagu soo dhaweeyay microphone-ka madaxweynaha qaranka Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo magaalada Burco waxay u ahayd maalin ka duwan maalmaha waxaana goobtii ay ku doorteen ku macasalaameeyay madaxweynaha qaranka Soomaaliland waxaanu bulshada u sheegay inuu uga tagay dhaxal ay ku faani doonaan isla markaana ay mar kale doortaan xisbiga talada dalka haya Kulmiye isla markaana ma aha mid abadkay laawi karo mudanayareey marwooye anigoo munaasabadda ka faa'iidaysanaya waxaan jeclahay halkan uga mahad celiyo taageerayaasha haween iyo maalin iyo hooba ila garab taagnaa marlabaad waxaan si weyn ugu mahad celinayaa dhammaan waxgaradkii aqoonyahankii waayeelkii haweenkii iyo haddoorkii dhalinyarada oo codkooda suurto geliyey inuu Kulmiye guulaysto isla markaana uu noqdo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland idinka digni inaanu fulino barnaamijka xisbiga Kulmiye iyo ballamihii aanu qaadnay idinku qaadnay
waxaan leenahay taageerayaasha xisbiga kulmiye sida aad noogu isteen ayaan ugu hambaynay maxamed jookar warbaahinta Ariel TV Burco.